بسم الله وجد حكم محكمة maalinta ay taariikhdu ahayd 4 bishii 6 2022 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kala ah kow dabla nisa Bukhari Caawil Maxamuud Cabdi 18 jir ah inada hawa xasan cilmi ku dhashay luuq ka tirsan ciidanka nisa ee degmada Doolow 2 dabla booliis 4456 dubad Cabdi Xuseen Cilmi 50 jir ah ina xadiyo maxamed ku dhashay degmada Balad Xaawo ka tirsan ciidanka booliiska degmada Balad Xaawo kuwaas oo xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabkiisa ku soo kala eedeeyay dil kas ah iyo gacansiin dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay ku xigeenka xeerlaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ku xusneed aayadda 178 suuratu al-Baqara qodobka koowaad iyo qodobka 195 bis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo la akhriyo qodobka 434 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qiraalka eedeysanaha koowaad oo ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa isla markaana uu qirtay dilka ex marxuum dabla nisa Cabdiraxmaan Axmed ilaxow Sudays markay dhageysatay marxaatiyaashii la horkeenay maxkamadda midna u dhuuxday marag furkooda ay ku cadeeyeen in eedeysanaha koowaad uu galay dambiga lagu soo eedeeyay markay dhageysatay baarihii kiiska kaasoo sheegay in baaris dheer kadib ay u soo ifbaxday in eedeysanaha koowaad uu geystay dil kas ah halka eedeysanaha labaadna uu lahaa abaabulka iyo amarka falkaas dilka ah markay dhageysatay markay aragtay warqadda cadeynta dhimashada marxuumka qorigii dilka lagu geystay iyo fooqyada xabadihii lagu dilay marxuumka sare ku xusan iyo sawirka marxuumka markay dhageysatay doodii u dhaxaysay xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanayaasha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda waxa u cadaatay in eedeysanayaasha sare ku xusan ay yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo wada eedeeyay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dabla nisa Bukhari Caawil Maxamuud Cabdi dil toogasho ah oo ah qisaastii ex marxuum dabla nisa Cabdiraxmaan Axmed ilaxow Sudays 2 dabla booliis 4456 dubad Cabdi Xuseen Cilmi 3 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanin xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq وجد حكم محكمة maalinta ay taariikhdu ahayd 4 bishii 6 2022 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane dable xooga 37882 Salmaan Ibraahim Shire oo loo yaqaan weel furatay 21 jir ah ina Maryan Cismaan Bagay ku dhashay Afgooye ka tirsan qaybta 4-3 ee ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dil kas ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ee ku xusneed aayadda 178 suuratu al-Baqara qodobka 434/72 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la akhriyo qodobka 195 bis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysana dable xooga Salmaan Ibraahim Shire weel furatay oo ka hor qirtay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa ee ahaa in uu dilay marxuum Naasir Xareed Dhimbil dilkaas oo ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gada markay dhageysatay marxaatiyaashii la horkeenay maxkamadda midna u dhuuxday marag furkooda ay ka hor cadeeyeen in eedeysanaha koowaad uu galay dambiga lagu soo eedeeyay markay dhageysatay baarihii kiiska kaasoo sheegay in baaris dheer kadib ay u soo ifbaxday in eedeysane Salmaan Ibraahim Shire weel furatay uu galay dil kas ah kaasoo uu geystay ex marxuum Naasir Xareed Dhimbil markay aragtay warqadda cadeynta dhimashada marxuumka qorigii dilka lagu geystay sawirka marxuumka markay dhageysatay doodii u dhaxaysay xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedeysanaha sare ku xusan sidaas darteed maxkamaddu waxa u cadaatay in eedeysane dable xooga
37,882 Salmaan Ibraahim Shira weel furatay uu galay dembigii lagu soo eedeeyay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii ex marxuum Naasir Xareed Dhimbil ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxaa u furan racfaan wabillahi tawfiiq